wasiirka ganacsiga Somaliland Dr. Muuse Qaasim Cumar ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray carwada Somaliland Business Fair oo si rasmi ah uga bilaabantay hotelka Guuleed ee magaalada Hargeysa. munaasabada waxaa ka qayb galay meeyarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko, consulka wadanka Turkiga u jooga Somaliland, gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland, ganacsato kala duwan oo ka socotay bangiyada iyo mas'uuliyiinta shirkadaha Dahabshiil, Telesom, Takaful, Som Cable iyo marti sharaf kale oo kala duwan. waxaana dhamaantoodba si mug leh u bogaadiyeen carwadani ganacsiga ee Somaliland ee maanta ka furantay hotelka Guuleed. anigoo ku hadlaya afka bahweynta ganacsatada reer Somaliland, waxaan oo farxada sida quruxda badan ee uga soo jawaabteen dacwadda aan idin furay. marti sharaf inooga yimi dalalka aynu jaarka nahay, waxayna la joogaa wafdi ka socda rugta ganacsiga Puntland oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Puntland iyo ganacsatadii waaweynay si ay inoola eegaan horumarkeenu gaadhnay iyo muxuu halka dalkeenu marayo carwooyinkana qabsanay. waxaanay loobi karaynin sharikadaha martigeliyey ee reer Somaliland anigoo kala qaadahay dhammaantood. runtii farxad bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno carwadii toddobaad ee qabatay rugta ganacsiga Somaliland. ganacsigu waa isku xiraha ummadaha dhammaantood, waxa uuna ka madax bannaan yahay siyaasadda. aad baan ugu faraxsanahay in carwadii toddobaad in lagu qabto Hargeysa markii toddobaad annaga farxad weyn bay noo tahay. aad baan ugu faraxsanahay ganacsatada ka soo qayb gashay. waa xilligii maalgashiga ayay u eg tahay inay Somaliland ku socoto. aad baan maalgashiga u soo dhaweynaynaa. ugu dambeyntii wasiirka ganacsiga ee Somaliland Dr. Muuse Qaasim ayaa halkaasi ka hadlay. farxad weyn bay tahay inaan maanta halkan furno carwadan toddobaad ee ah carwadii nationalka ahayd oo ay soo qabaqaabiyeen rugta ganacsiga iyo sharikadda AOA. carwadani runtii way ka duwan tahay carwooyinkii hore, waanay ka weyn tahay runtii oo si wanaagsan baa loo soo abaabulay. faa'iidooyinkeeda runtii carwooyinka waxaa ka mid ah in horta dadku isdhex galo